dadweynaha ku dhaqana xaafada Sheekh Cilmi Dahor ee koonfur bari magaalada Boorama oo maanta warbaahinta la hadlay ayaa waxay cabasho xoogan ka muujiyeen maayirka degmada Boorama iyo barasaabka gobolka Awdal kuwaas oo ay ku eedeeyeen in dadkan danyarta ah ee degan xaafadaasi oo hore loo diiwaan galiyay ay si wada ka ah uga saareen diiwaangelinta lagu qaadanayay raashinka ay xukuumadda Soomaaliland ugu tala gashay in la gaarsiiyo dadka danyarta ah ee ku dhaqan guud ahaan Soomaaliland waxayna sheegeen in marar badan oo ay ku noqdeen xafiisyada gobolka iyo ka degmada Boorama aanan wax jawaab oo qanciya la siinin dadkani danyarta ah waxayna baaq dheer u direen madaxweynaha Soomaaliland iyo madaxweyne ku xigeenka waxayna ugu baaqeen in laga soo gaaro dadkani danyarta ah ee uu saameynta ballaadhan ku yeeshay xanuunka COVID-19 iyagoo markii horeba la daaladhacay sidii ay u dabari lahaayeen noloshooda waxana hadaladoodii kamid ahaa ay ka cabanayaan xaafad waxa nahay deegaan cusub ah ayaan nahay magaalada Boorama ka tirsan magaceeguna uu yahay xaafadda Sheekh Cabdi Duhur haw yahay ayaan nahay waa xaafadda maanta ma aragtaan ee danyarta waa dadka deegaanka cusuba waa dadka buul iyo jiingad uun guryahoogu yihiin waxa jirta in ma aragtaan maanta laagaha dhex taalo oo hanan bacdi hay ku dhisanaysay iyo jangadii hay dhisanaysay midnaba haysanin ayaa jirta jagaha iibsateen oo jaga yar oo bilaadan dhex taala jirta waxa leenahay waxa macaawimo magaalada laga bixinayo ee dawladda Soomaaliland lagu soo caawiyay waxa waxaan ku leenahay ma jirto 3 jeer baan geynay ma aragtaan xafiisyada ka barasaabka ka maayirka ka ma aragtaan abaaraha intaba waan geynay warqadaha yagi way yaaliin wax nooga soo jawaabo waa weyne ugu dambeyn daraado u dambeysay baan tagnay waxa nidhi war aawe warqadaha yagi waxa la yiri dad anagu han qorqoranay iyo ma aragtaan warqadihiini waxba way ka socon waayeen baa la nagu yiri iniguna imika maanta waxa la waxad ku leedihiin waxa macaawimo socota ma jirtaa la nagu yiri waxa kale oo noo dheerinta oo macaawimada noo dheer dawladda magaalada Boorama iyo gobolka Hanan midnaba wax la lahayn waxa noo dheer waxaan nahay xaafad cusub oo imika deegaanana wax wado oo leenahay ma jirto maalinta roobku hawdo bajaasiyada yaryar ee xaafadaha imanayay laagtaasay galaan cagba ma aragtaan ku soo soconaa biyo uga gelin ma lihin wadan ma lihin biyo gelin ma lihin isgool ma lihin miskiid ma lihin xanaano maanta ma aragtaan tii ama xanuunsanaysa uureeya ama tii umulaysa laga ma lihin madrasad maanta ma aragtaan ma lihin haw ubadku wax ku barto oo diinta lagu baro ma lihin waxa soo dhanba waan ka qatanaa waxaan leenahay madaxda Boorama iyo ma aragtaan dadka islaamka aba waxaan leenahay war hal hoos la noo dayo leena cabasho un baan wadnaa intaay cabashadiina wali waxba kuma haynee hala nodayaan leena magaalada ma aragtaan han ka mid noqonaan leena ya magaaladana han ka mid noqonaan leena wax dheeraada ma doonayno oo hawnan dalku lahayn ama si haynan xaafad magaaladu lahayn iyo gobolku hawna lahayn ma doonayno laakiin wixii magaaladii iyo gobolku ay lahaayeen baan ka qatannahay haday magaalada haday waxa soo sheegno dhan haday iskool tahay haday wada tahay haday ma aragtaan tahay macaawimo haday tahay iyaan ka qatanna war waxa weeyaan baahida Ilaahay baa bixiya waxa seen ka hadlaynaa wixii jira aan ka mid noqonaan leenahay dadku waa baraka waa dadka magaalada dabadega ee aan u dhaweyn gaadiid meel noo soo mara ma hayno oo togagaasaan u degannahay masaajid iyo biyo midna ma hayne magaaladan ka soo dhaansanaa biyaha oo degtaan ku soo guranaayo dameero waxaan leenahay waxaan la hadlaynaa ina biixi iyo saylici taanu madaxdan la hadli waxa weeyaan dadkani waa dadka danyarta ee dayacan een Ilaahay ka dayacnayn marka nimanka u shaqeeya ee mas'uuliyiinta isku sheegayo ha loo tixgeliyo cabashadooda oo cabashadeeda ha loo tixgeliyo oo inta sheere aanu xafiisyada ku noqonay kolba mid afqaloocun baa Hargeysa laga keenayo saqiif oo wuxuu lagu yiraahdaa imika ka daba imanaya noomana yimaado marka daba ku noqonana waraaqiini way gubteene dad baanu soo diri doonaa dadkaasi nooma yimaadaan cid magaalada nooga timaada ma jirto haba yaraatee
iyo Hargeysa midna marka waxaan leenahay walaalahayow dadka maamulka ahow war dadkaasi waa dadka mas'uulka ka tihiin aad u xil saarantihiin aad ka soo dhaxbaxdeen cabashadooda u tixgeliya. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله مسلمين وحنا كعصنا إننا صعاوية سفر عم حنا صاصيان ورقدان جيسني وحنا كسوان جينا عندنا جمصة إنه وحبق قاطة وحويان مال والبمجان بور مرة شمال قبحية أنا وقرمضة عصوبة ناي قريها قلنا ودركسين ركض شونا ودركسين عريان باتشوجة إسلام ويانا شوكته إن ومحن كنا دومر أورلا شوجة حنا أنا متشرو هلا ليدين كل شيء دكتور متشرو هلا رنين كل شيء إسكول متشرو كل والدين ولا شيء وايا هيجا لكن ولا الواحد نقول عصرنا فضلا وذلك سيدت كم ماشي شوجة تذكر سيدت كم مجانا كم ميين بس كم ما أوضل كم ما نايم بس كم منين هدانا كم هين أوضل كم متين لادين وسيدة أجو ما شوجة عريان باتشوجة ويال باتشوجة وحويان ضد بحن باتشوجة هلك وحنا كانوا كنا كصباحسي قريها سان كنا دركيسين دبعتها صادت كانوا كويسة وحنو بحنا هاي تذكر أوضل إنا كم نقولنا هدانا أوضل كم هين كم متين ندها وحويان محن كرداي أنا طلبات ما يركي ورقدا لوجي وحوري برا صاحب كهية برا صاحب كنا وحوري أبو كامل يدي وحورقدا هذا لوجا صوت شوي متشتو ما عليك استون تجنو يعني كان بلا نقول هذا مقالة أنا تطبع طماطم شرقاتي تطبع كدر جي أنا قلنا وحنا إن نكمل نقنا أن قادنا أنا قام بال عصبة أو مجرى قرية الشيخ عبد الرحمن ظهورا قرقاب دوش هذا دقن مركا وحنا إن أنا نجوا رايسين أو جاتين كمل ما نهاي كمل ما نهاي أوضل ما نهاي أوضل ما نهاي هذا نديدين أنا أقول قرقات ما نقولنا سومالنا وندين إن هذا نديدين هذا سومال ما نجمع ندين ما نقول ما ينو ما نحوينه هذا دجاجتو ما نحوينه هم مغلا وصبيه هم مغلا دجافرنا نايشة تتكبر هن أقول تلا محن كنا لا دبعة سنة قريان كلا عجعج هاركان walaal waan salaamaynaa maxay ahayd halana ogaado sida inanka iyo inantuba ay sheegeen halana ogaado halana soo gaadho magaalada Boorama maxay ahayd inaanu ka tirsanaano weeyaan gobolka Awdal inaanu ka tirsanaano weeyaan dad kira soo eriday baan nahay dadka buulashaaya iska danyartaa baan nahay dadka aan waxba haysan baan nahay dadka lugaynaya maxay ahayd jidkana aan jid haysan baan nahay dadka madrasada haysan baan nahay walaalahana miskiid ma haysano marka walaalo waxa dawladii hadaa tihiin bada saafkii hadaa tahay walaala sida ugu dhaqso badan lana soo ogaada walaala waan fadlan maxay ahayd 2 jeer 3 jeer baan soo cabanay 3 jeer baa arintayadii maxay ahayd waxba kuma soo qaadin odayaashayadii reerka yimiday waad soo celiseen madnaan baad soo celiseen walaala waayeelkii baad soo celiseen dadkii waaweynaa baad soo celiseen marka walaala magaalada Boorama Awdal gobolka Awdal inaanu ka tirsanaano oodna ogaatiin ood waayeelka aad ogaatiin baan doonaynaa oo dadka danyarta ogaatiin baan doonaynaa walaala sida maxay ahayd inaad noo ogaatiin ood noo soo maxay ahayd noo war nooga haysin baan doonaynaa walaala waa markii saddexaad imika markaan cabanayni markaa 3 jeer oo 2 jeer horaan soo cabanay markaa walaala inaad noo soo ogaatiin ood maxay ahayd noo ogaatiin baan doonaynaa oo raashinada dadka laga dhargay 2 jeer 3 jeer 4 jeer la qaatay ee laga dhargay inaanu ka qayb galno wallahi nu kama qayb galin marna wallahi nu ma qaado waa magacii Ilaahay udalaalsan baan nahay dad Itaaliyar baan nahay dad magaaladii ka soo baxay oo u kire waayay baan nahay dad hadii la yiraahdo boolal yar iyo jararka ya jeexjeex joogaan nahay dad aqoon labaan nahay dad waxaan nahay hadii la yiraahdo Itaaliyar magaaladii waan ka soo baxnay waxaan doonaynaa madrasad waxaan doonaynaa hadii la yiraahdo waxaan doonaynaa madrasad biyaan doonaynaa wadaan doonaynaa miskiid baan doonaynaa intaaba waan laanahay waa caawimaan doonaynaa waan Itaaliyar nahay adduunka u kala xidhmay waxa la wax diyaar la qaadaa la leeyahay wax isdhaxda ma jiro waxaan niga doonaynaa waxa weeyaan caawimaan niga doonaynaa waxaan ka cabanaynaa raashinka wadanka yimaada ee tirada badan leh daantana waa daan agoomo iskugu jirta waa daan danyaro iskugu jirta masaajid malajid malaha dawladda waxa laga codsanayaa Boorama oo dhan daantuna bana wax laga siinin in wax laga siiyo in hoos loo eego in dawladdu hoos u eegta in agoomaha hoos loo eego in curyaaminta hoos loo eego codadkiina baan idin maanta danta la haydeen madaxweynaha iyo maayirka iyo inta degmada xukunta waxa laga codsanayaa inay dadka masaakiinta si degdeg ah u soo gaaraan Sikari Cabdi Shaafar Sikari Saxane magaalada Boorama